سؤاشينا كوباد وحويان لكن كوباد ويان مركز أشكنا دوعين connect console cable to switch one switch ka console cable isku xid computer ka way waa kan computer kini console ki waa kan marka console ayaa taabanaysa waxaanad ku xidhaysaa RS232 hadhow maxaad shaqadaas hadhow soo qaaday ilaa 10 console cable ki waan ku xidhnay markaas switch ka hadaan eegno enable eeg marka computer ka hadaan galno PC ga hadaan galno desktop kas bad si taabanaysa marka terminal ka segelisa maaha command prompt waa terminal ka okay baad oranaysaa okay switch ki enable samaan ku qorin okaas enable su'aasheena labaad waxa weeyaan configure management IP address in order to access remotely way configure management IP address way management way commit bangalna or configure terminal interface VLAN 1 IP address 192.168.1.255.255.255.0 no shutdown way سؤاشي labadan ka jawaabna su'aasha saddexaad way create username and password baan soo sameynaa marka exit username admin password 123 way su'aasha afraad enable remote login using VTY for 5 connections way remote login kii waan enable garayna waxaan odhanaa switch ka gal line VTY 0 imso qof waa 15 marka 4 baan ka dhignaa 4tii waa 5 qof way login local baan odhanaa login local way su'aashaasina ku jiro su'aasha ugu dambaysa waxaan enable secure remote login using SSH and unsecure login using telnet kan ka horeyna telnet ka ayaan ka horeyna SSH ka noo dambeeyo telnet ka waxaan odhanaa transport input telnet maneri is kan waan ka baxaynaa IP address baan soo siinaa IP address ayaan soo siinaa marka wayna ping garaynaa ping 192.168.1.1 waynu noo reply garayaa may kan ma sorry kan console kii ugu jira mid kala soo qadan xarig fast internet 0/1 kanna fast internet marka kan baan IP address soo siinna kaasi wuxuu ku jiray waan khaldamay kaasi wuxuu ku jiray console kii uu haayo de router kii uu si toos ah ugu dhex jiraa ping 192.168.1.1 okay usoo jawaabay maragta daxarna telnet 192.168.1.1 okay admin password 123 enable password ma la soo siin buu leeyahay markaan nidhaahna exit enable password 123 enable 123 wataas
show AB interface brief include app marka interface kaas waa VLAN kaasna waa marka su'aasheeni afraad waan ka jawaabnay telnet SSH aan u galno hadda routerka intaan sida u galno ayaan odhanaa domain name horta inoo soo baxay horta switchka magaca wayna ka bedelnaa magaca ayaan ka bedelnaa host name is switch 1 marka waxaan odhanaa ib domain name waxaan ka odhanaa ccna kow waxaan odhanaa crypto key generate crypto key crypto key حنيلة crypto key generate RSA كلاب كونيا فريالات ما قرينا وتاس أوكي أي صباح حرنا AA انتامنا waxaan kala oranaa line VTY 0 ilaa 4 xarna transport input SSH marka waa inaan ka SSH ku geli karnaa SSH halkan exit waxaan SSH L admin username keenu admin buu L taasi waxa weeyaan isticmaal username kan weeyaan way 192.168.1.1 marka passwordkii ogaana weydiiyay okay switchkii enable 1 2 3 on ku xishin marka waxa labadii waan isticmaalay ta ugu dambaysa waxa weeyaan verify connecting computer to switch SSH to switch 1 taasna waan ka jawaabnay